wafdi ballaaran uu hogaaminayo xogayaha maaliyadda xisbiga wadani Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa maanta si ballaaran loogu soo dhaweeyay deegaanada Guumays iyo Goori Samakaab Aare Cadeeye Canjiid iyo degmada Laascaanood waxaana soo dhaweynta xogayaha maaliyadda xisbiga wadani Cabdirasaaq Khaliif Axmed laga dareemayay guud ahaanba gobolka Sool waxaana dhammaan deegaanadaasi ku soo dhaweynayay taageerayaal aad u tiro badan ee xisbiga wadani ee ku sugan deegaanadaasi kuwaas oo taxnaa laamiyada waaweyn ee deegaanadaasi waxaana dadweynaha guud ahaanba gobolka Sool ee xogayaha maaliyadda ee xisbiga wadani Cabdirasaaq Khaliif Axmed kaga hor imaanayay banaanada hore ee dhammaan deegaanada gobolka Sool ku teedsan iyagoo ay shacabka deegaanadaasi cadeeyeen inay la garab taagan yihiin codkooda iyo cududooduba xisbiga mucaaradka halkan oo magaalada Guumays oo aan ku soo dhaweynay Cabdirasaaq Khaliif xisbiga wadani ayaan ku soo dhaweynay si mugle oo baaxad leh ayaa loogu soo dhaweeyay beelweynta iyo ummadda degan deegaanka ayaa si mugle oo baaxad loogu soo dhaweysay waxaan maanta degmada ee Goori ku soo dhaweynaynaa wafdi ka socda xisbiga wadani oo uu hogaaminayo wasiirkii hore hawlaha guud iyo guriyeynta Cabdirasaaq Khaliif Axmed waxaanu leenahay in badan ayaa ka maqnay degmadaada iyo dalkaaga ku soo dhawow waa lagu soo dhaweynayaa ummadda tani waxay gaadhay xilli ay xisaabtanto xisbi kasta wixii uu gashado dalka ayuunbaa lagula xisaabtamayaa Cabdirasaaq Khaliif aanu ku soo dhaweynayno oo wadani mar labaad iyo mar koobaad ku soo dhawaada waad ku soo dhawaanaysaan reer Canjiid xukuumaddu aad ayay u dhaaftay wadani ay wad maqlaysaan bay u dhaaftay hadday dhaaftay meesha waad aragtaan biyo male bacad bay taagayiin sidii u soo dhaweynaynaa xisbiga wadani oo uu hogaaminayo si wacan baan u soo dhaweynaynaa Cabdirasaaq Khaliif si wacan baan u soo dhaweynaynaa boqolkiiba boqol waana ku kalsoonahay meesha waxay la tahay in la kala badiyey waadna aragtaan nin walbana indhihiisa u macallina waxay la tahay gobollada Sool Sanaag iyo Cayn gobollada Sool Sanaag iyo Cayn wada hadalka Khaatumo iyo Somaliland waa ragii ka midha dhalin lahaa ugu soo dhaweeyay waxaan leenahay shacabka reer Laascaanood message-ka ka diriyaa waxa weeye registration-ka waynu qaadanay number aan aad u badnayn baynu ahayn walaynu ku mintino aynu qaadana kaarka diiwaangelinta si qof uu codeeyo maanta Cabdirasaaq wuu soo dhaweynay haddaynan qaadanin kaarka maalinayna waxba ma tari karayno soo dhaweynihiina wali way socon doonaan madaxda xisbiga qayb badan baa soo socda xisbiga wadani uu istaba joogaa gobolkuna uu ogol yahay degmooyinkii iyo tuulooyinkii waad arkayseen aad iyo aad baa loo heelayahay laakiin waxaynu u baahannahay sidii raggii hore bay yiraahdeen kaarka inuusan naga khasaarin aad iyo aad idinku buurinayna oo soo dhaweyntiinaasi maxaa noogu samaynaysaa ilmaada reer waxa soo dhow sida aad ogtihiin kaar qaadashadii waa aragnaa inaad nacdeen xisbiyadii kuwii hore waxba qaban waayay annaga aad rajana bideen rajadiinaasi waxaad annaga noogu helin kartaa markaad intaad kaarka qaadataan aad sidaa tahay hadda waa faryar xabad maaha waa faryar dhag warfartaa ku dadaalo wadani guul annagu waxaan nahay dad badan baan xamanayo hore goormay wadani galeen annagu xildhibaanadii kulmiye ka soo baxay baan kulmiye waa xisbi qaran muu dhicin laakiin siyaasadiisa waanu salugnaa wax wada shaqeynaa naga ma dhaxayso shacabkana lugoyn mayno oran mayno kulmiye la shaqeeye wadani baan annagu codkayga siinayna wadani baan la shaqeynaa oran doona mujaahidnimo cod ma ku bixinaysaa innagu dadka dagaalamay baynu nahay innagu codkeenu waa Cabdirasaaq Khaliif iyo wadani waayo ilaa 9kii subaxnimo ilaa iyo haddeerto ay 3 galabnimo ku dhowdahay baynu taagnayn waa idin mahadnaqaya aad baan idinku mahadnaqayaa soo dhaweynta iyo ixtiraamka iyo sharafta runta aan islaam waad ka mudanteen idinku aad noo garateen aad nagu soo dhaweyseen aad baan idinku mahadnaqayaa marka labaad anigu ixtiraamaya ra'yiga iyo aragtiyaha dadku halkan ka soo jeediyeen haddana xilligan ma ahayn xilli campaign ma ahayn annaguna campaign uma soconin waxay ahayd wax danteena wada ah sida la sheegay oo danta guud ee gobolka iyo dadka iyo deegaanka wax badan ay naga xidhayeen oo ah diiwaangelinta soo socota waxaan rajaynayaa dhalinyaro iyo waayeel baynu u guntan doono inaynu nambarka yar ee isdiiwaan geliyay kaar quriinu naga noqon insha Allah taala inaynu u guntan doono
xogayaha maaliyadda xisbiga wadani Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa halkaasi xadhiga ka jaray xafiisyo uu ku yeelan doono xisbiga wadani deegaanada Guumeys Goori Adhe Cadeeye Tuulo Samakaab iyo Canjiid iyo magaalada Laascaanood soo dhaweyntan ayaa noqonaysa tii ugu ballaarneed ee loo sameeyo siyaasi ka soo jeeda deegaanada gobolada Sool Sanaag iyo Cayn Maxamuud Aadan Askar Maxamuud Guray Somali News TV Laascaanood